السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنت وأنا ونكسن دمان داوديشة قيمها أي قدرية مدن وميل كستا جوجتان وقت كستيد انتهي وقت وايد وعنا دو بدبادة إيه نحريستي بنا كوركينا هاتو كسر دوادا برنامج كي تحنا ها إنو كجهد لني تاريخ دي نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه قيبتي صدحات ما أنت عشر كينو وحاو دارين هاي قصدي عجيب كبدنيد دعددي لياب كبدنيد markii nabiga sala allahu calayhi wasalam lagu sameeyey dhacdadii la yaabka badnayd ee ahayd xaadithatu shaqu sadar dhacdadii nabiga sala allahu calayhi wasalam lagu sameeyey ahayd qaliinkii la qalay ee laabta la jeexay ama caloosha lagaga sameeyey. dhacdadani waxay sheegaysaa in nabiga sala allahu calayhi wasalam laabta laga jeexay oo laabta laga qalay waqtigaasuu la joogay xaliimatu sacdiya uu la noolaa nebigu sala allahu calayhi wasalam. waxaa u yimi laba malag oo dhar cadcad oo xidhan oo allah subxaanahu wa tacaala u soo diray nebiga sala allahu calayhi wasalam. waa ay qabteen nebiga sala allahu calayhi wasalam waana ay jiifiyeen waxayna ku sameeyeen qaliin laabta oo cajiib ah, qaliinkaasoo la mahadiyey. waxay ka soo saareen halkii uu shaydaanku fadhiisan jiray bini aadamka isaga oo waxba noqon nebiga sala allahu calayhi wasalam. nebiga sala allahu calayhi wasalam meel la jaray ma jirto oo wax u noqdo ama wax u noqday ma ay jirin. sidaa darteed ayuu nebigu sala allahu calayhi wasalam waxa uu yidhi qof kastoo bila aadami waxa uu leeyahay shaydaan. sidaa waxaa leh saadiqu lmasduuq nabiyuna maxamed salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh. qof kasta oo ina ibnu aadam ka midii waxa uu leeyahay shaydaan. markuu nebigu sala allahu calayhi wasalam sidaa yidhi, caaisha radi allahu canha ayaa weydiisay nabiga sala allahu calayhi wasalam su-aal. waxa ay ku tiri caaisha, nebi allow adigu shaydaan baad leedahay? dabeetana waxa ugu jawaabay nebigu sala allahu calayhi wasalam, haa, shaydaankaygu waa islaamay ama waan ka badbaaday oo waan ka magangalay. allah subxana wa tacala ayaa ka magangeliyey oo ka badbaadiyey. markii arrintu halkaa maraysay nebiga sala allahu calayhi wasalam loo sameeyey qaliinka waxaa la joogay nebiga sala allahu calayhi wasalam kuwii yaryaraa ee xagga nuujinta ay walaalaha ka ahaayeen ee ay dhashay xaliimatu sacdiya. waxayna la joogeen maqal, waxaanay joogeen guriga dabadiisa ayaa ay waxaweyaan maqal la joogeen. dabeetana waa ay soo yaaceen, mid ka mid a ayaa soo orday. dabeetana waxaa u soo cararay xaggii hooyadii iyo aabihii isagoo u sheegaya dhacdadan nebiga sala allahu calayhi wasalam ku dhacday. dabeetana waxa uu yimid hooyadii aabihii waxaanu u sheegay, uu ku yidhi kii yaraa quraysheed isagoo u jeeda nebiga sala allahu calayhi wasalam xag aan walaalo ahayn niman dhar cadcad wata ayaa u yimiday. waa ay qabteen, waa ay jiifiyeen. dabeetana caloosha ayaa ay ka qaleen. waa kuwa haysta waxa weeyaan xoogga ku haysta. waa ay soo yaaceen, labadoodiiba waa ay soo yaaceen. waxay u soo ordeen xaggii nebiga sala allahu calayhi wasalam. dabeetna waxa ay soo gaadheen isaga oo ay ka muuqato diif iyo waxa weeyaan ay ka muuqato iyo aada waxa weeyaan markaa isku bedelay nebigu sala allahu calayhi wasalam. dabeetana xaliimatu sacdiya ayaa usoo horeysay, soo horgaadhay, way qabtay, laabta ayay ku qabatay. kadib waa ay dhunkatay nebiga sala allahu calayhi wasalam. odaygana sidoo kale waa uu qabtay, dabeetana waa uu dhunkaday.
arrintu markaa isaa ahayd su-aal ayaa ay nabiga sala allahu calayhi wasalam weydiisay xaliimatu sacdiya. waxa ay ku tiri, hooyo, maxaa ku helay? kuwa yareer way soo yaaceen, waxbaanay noo sheegeen, sidee wax u jirtaa ayay weydiisay nabiga sala allahu calayhi wasalam. dabeetana arrintu markaa ay saa ahayd kadib waxay go-aansatay xaliimatu sacdiya, mar hadday arrintaas halista lihi kusoo food yeelatay nabiga sala allahu calayhi wasalam, in la celiyo oo reerkoodii loo celiyo nabiga sala allahu calayhi wasalam, oo lagu celiyo hooyadii loo celiyo ayaa ay go-aansatay. celinta la celinayo nabiga sala allahu calayhi wasalam iyo warbixinta ay gudbin doonto iyo siduu waxa weeyaan waxaanu ku qaadaa dhigi doonaa insha allahu tacaala. casharadeena dambe ayaan ku qaadaa dhigi doonaa. casharka maanta intaas ayuu noogu joogayaa insha allahu tacaala. intayn deriska xiga ku kulmayno waxaan idinku dhaafayaa salaamu ullaahi calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.